xalay dhashalay tolo dhacay ee Israa'iil ay ku dhawaaqday inay ictiraaftay Somaliland waxa hadallada kamid ahaa inay Somaliland aqbashay inay ku biirto akoorka ama mashruuca Ibraahimiyada qodobkaas kamid ahaa oo ku dhawaaqay Netanyahu isagoo uu sheegaya Trumpna inuu sheegay ruuxaantii qodobkaasi madaxweynuhu wuxuu baahay in loo eego sharciyada dastuurka Somaliland maalintii go'aysay 1991 lix qodob ayay ku gooday oo lix qodob ba aha go'aamadii la soo saaray qodobka labaad ee go'aamaha ku jira wuxuu ahaa Somaliland in lagu dabaqayo shariicada islaamka madaxweyne qodobka shanaad dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa in Somaliland aan islaam ahayn aanay ka shaqeyneen madaxweyne qodobka labaad wuxuu dhigayaa qodobkaas faqridiisa labaad waxay dhigaysaa inaan sharciga Somaliland ugu sareeyo shariicada islaamka yahay madaxweyne qodobka shanaad wuxuu toos u dhigayaa faqridiisa saddexaad xukuumaddu inay u dhisantay xukuumaddu inay fuliso shacaa'irta islaamka shariicada islaamkana dabaqdo mudane madaxweyne qodobka 127 ee dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa shariicada islaamku inay mabaadi'da aasaasiga tahay wax ka soo horjeedaan aan shaqeyneen madaxweyne ballanta aad qaaday ahayd waxaan ku biiraynaa akoorka ama heshiiska ama mashruuca Ibraahimiyada waa mashruuc aad u halis badan waxay soo saareen sanadidii u dambeeyay waxay soo saareen ururka midowga culimada muslimiintu waxay soo saareen inuu mashruuca Ibraahimiyadu yahay mid diinta islaamka ka soo horjeeda oo xaaraan ah oo la qaadan kare madaxweyne mashruucaas wuxuu ka soo horjeedaa dhammaan qodobada dastuurka aan sheegay ee sheegaya shariicada islaamku inay mabda aasaasi Soomaaliland u tahay madaxweynuhu ay tahay inuu dhaqan geliyo isla markaana baarlamaankuna sidoo sheegay qodobka 38 uu leeyahay inay baarlamaanku wuxuu u aasaasan yahay inuu sameeyo shuruucda islaamka ah ee loo baahan yahay qodobkana waa ka soo horjeeda madaxweynuhu kugu baraarujinaya adigoo dastuurka eegaya qodobada asaasiga eegaya inaad qodobka mabda noocaas inaad ku biirto inaad khatartiisa aad ogaato ayaan la baroon ku sheegaya qodobka labaad madaxweyne waxa weeyaan heshiiska ictiraafkii aan shalay toole helay waxa inoo cadaatay ictiraaf bayna siisay Israa'iil laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay anagu Israa'iil maxaynu siinay maxaan Israa'iil ugu bedelnay ictiraafka madaxweyne qodobka adiguna maad cadaynin meeshana kama cadayn waanay maqanta waxa muhiim ah shacabka Somaliland inay ogaadaan maxaa ictiraafkan ayagu heleen Israa'iil maxaa loogu bedelayaa sababtu waxay tahay madaxweyne dastuurka Somaliland marka aad soo qaado qodobka 38 faqradiisa lixaad waxay dhigaysaa heshiis kasta oo caalamiya oo tabiicadu caalami tahay waa in la keenaa baarlamaanka Somaliland madaxweyne hawshan aad ka heshiis baa ka horeeyay labada qolo masaalix bay isweydaarsadeen Somaliland Israa'iil waxba isweydaarsadeen madaxweyne waxa isweydaarsadeen ee Somaliland ay weydaarsatay ictiraafka maadaama uu heshiis u noqonayo waa in la hor keena baarlamaanka Somaliland ummaduna waa in ogaataa warar badan baa waxa la badan sheegaya warka sheegaya Somaliland in la Somaliland la keenayo Falastiin la keenayo anu aqoonta intaan ogahay warkaas waxba kama jiraan weeyaan war badan oo warbaahintu ay sheegtay oo leey Falastiin baa la keenaya war intaan ogahay warkaas ilaa hadda ma jiro heshiiskana kuma jiro laakiin waxa jiro qodobo kale oo waaweyn madaxweyne oo heshiiska kamid ah waxa loo baahan yahay in ummadda Somaliland ogaato baarlamaanka Somaliland la hor keeno si ay u ansixiyaan ummaduna ogaato haddii kale waxa inagu dhacaya sida hore inagu dhacay madaarka Berbera inagoon heshiisna ku galin in wadana gaar ay qaataan marka qodobkaas inuu cadaada madaxna waa muhiim madaxweyne qodobka saddexaad ee muhiimka waa maxay waxa madaxweyne heshiiskan aad gashay iyo ictiraafkan aynu helnay wuxuu tilmaamayaa oo keensanaya Israa'iil hortayna iyadu dawlad ay tahay wuxuu kaloo runtii hoos u dhigayaa dhibaatadii soo gaadhay reer Falastiin iyo reer Gaza iyo kumaankii qof ee ku dhintay meesha hoos buu dhigayaa markaan inagu dabaal degayno aynu faraxsanahay calankii Israa'iil aynu wadano isla markaana ay dib weyn ka taagantay Gaza oo muslimiin la laynayo wuxuu ka soo jeeda qodobka dastuurka ku qoran qodobka 10 dastuurka Somaliland faqradiisa 6 faqradiisa 7 oo dhigaya Somaliland waxay kamid tahay ummadda Carabta
waxay kaloo ka mid tahay ummadda muslimiinta wuxuu kaloo qodobka toddobaad siinayaa somalilan inay ka soo horjeedo fal kastoo argagixiso inay ka soo horjeedo si kasta ah loo fasirto saas qodobkaasi dhigaya madaxuna falalka halkaa ka dhacay caalamku hay-adaha internationalka waxay wada caddeeyeen falal argagixisa inay ahaayeen inay somalilan markaa dowlad noocaasa oo qaab noocaasa ay u gasho oo weliba aan ogna dhibta dhacdayna waxay tilmaamaysaa inaynan danka lahayn inaynan qodobada dastuurka aynan eegin ayay tilmaamaysaa mudane madaxweyne qodobka afaraad ee muhiimka waxa uu yahay dalkeenu waa dal curdina amnigeenu weli si fiican uma sugmin waxaan u baahanay inaan aad uga fiirsanno khatarta inagu keeni karto xagga amniga istiraatiijiyado saxa waa in laga yeeshaa waayo khatar weyn bay nagu soo waajahan haddii aynan ka hortegin oo weliba dariiqooyin fiican aynan qaadin waayo waddano badan baa hawshan dhinac ka ah oo diidan howlaha noocana khatar weyn oo amni bay nagu keeni kartaa marka hawsha in runtii sidii looga hortegi lahaa sidii khatarta loo yaray lahaa somalilan waa falwada qabataa mudane madaxweyne qodobka shanaad waxa weeyaan een ku soo xidhaya qodobadaasi waxa weeyaan somalilan heshiiska ama ictiraafka la siiyey muxuu keenay marka go'aan la qaadanayo waa in laba dhinac laga eegaa cost and benefit analysis maxaa dhib ku jirta maxaa dheef ku jirta waa inaad madaxweyne si toos ah u cadaysaa ilaa hadda ma cadda maxaynu dheef ka helaynaa maxaase dhib naga soo gaadhaysa dekedeena Berbera waa meesha kaliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo dagaan maxaa dhib ku iman karta maxaa laga helayaa dhaqaale hawsha noocana ilaa hadda runtii intaan ognahay wax dhaqaale oo ictiraafka ku lamaanan ma jiro heshiiskii Muuse Biixi berigii saxiixay waxa ku lamaanaa maxay dhaqaale adliis waxa ku lamaan